السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta ummi ikhlaas maxay idin wadaa qiso cajiib oo dhab ah ee ka dhacday magaalada Kampala. qisadaas ay ku dhacday gabar Soomaaliyeed, hooyadeed iyo aabaheed way kala tageen. hooyadeed iyadoo umula la furay, si walba rafaad walba ay soo martay, hooyadeed booyaasnimo ay soo martay, shaqaalnimo ay soo martay, ay kusoo korisay, maxaa la waxbarashada ay kusoo bixisay. si walba ha ahaatay gabadhii way kortay, heer jaamacad bay gaartay. gabadhii yareed heer jaamacad bay gaartay. aabaheed war kama oga, hooyadeed bes baa soo korsatay. si walba iyo rafaad walba ay kusoo korisay. gabadhii way weynaatay, nin bay isjeclaadeen, wiil bay isjeclaadeen. wiilkii isjeclaadeen jaceyl oo waxa ka dhaxeeyay ilaa iyo xad dhaaf ah. hooyadeed bay u sheegtay, waxay tiri hooyo nin baan jeclahay, ii keen bay ku tiri hooyadeed. hooyadii way u keentay, waa qabiilkaaga ee tiri. waa dunida waxa ka jiro asxaabey, waa aragteen dunida waxa ka jira. xamar waxa ka dhacay waa aragteen. gabadhii oo naf loo waaysiiyey waa aragtay. qabiilada la tikooray waa aragteen. marka asxaabteyda waxaan idinka codsanaa please and please sii shargareeya qisadii yaani sii wadaa. gabadhii way isjeclaadeen, hooyadeed bay u keentay, gurigii bay keentay. waxay tiri hooyo waa kane wiilka aan isjecleen. markay in badan aysa gurigu imaanaa, marka waxay tiri hooyo inaan guursadaan rabaa. marka wiilkii baa la wareystay, waxaa la yidhi qabiilkaada yaabaa. aniga qabiilkayga wuxuu yidhi qabiilada la tikooraya buu u sheegay. marka hooyadeed wiilkii waxay dhahday guriga iiga bax bay tiri, gabadhaydan kuguma arki kari bay tiri, aniga qabiilka isma galna bay tiri. sidii ku baxday, sidii ku baxay wiilkii. gabadhii hooyadeed waxay tiri albaabkana kama baxaysid, meel aadaysid ma jirto, meeshaanaan joogaysaa bay tiri. waxbarashana jaamacadaadana ma aadaysid bay tiri, gurigana ii dhex fadhinaysaa bay tiri. gabadhii hooyadeed warkeedii kama maqlin, way baxday, way iskaga carartay. wiilkii bay u tagay gurigiisa. waxay tiri walaalow inaan la diidayo ani ada waa aragtay qabiilkii oo lamid tikoorayo yani oo isguursanayn. waa aragtay inaa maxaa lahaa meesha waxa ka jira waa aragtay. ina keen bay tiri, waa isla baxsanaynaa bay tiri. wiilkii sidii buu ku aqbalay. hooyadeed wiilal bay maxaa lahaa ka daba dirtay. way ogaatay in wiilkeeda ay la baxsatay, gabadheeda oo la baxsatay. sorry xamaasada qaaday. gabadhii inay la baxsatay waa lasoo ogaaday. wiilal bay ka daba dirtay oo maamada qabiilkeeda ay yihiin, yani isku jufo ay yihiin. way iska waa la keenay gabadhii. silsilad baa lagu xiray asxaabay. silsiladii haddana way iska furtay. waa maamada way iska xamaalanaysay, silac iyo rafaadba way iska xamaalanaysay. ay kusoo korisay, way aragtay hooyadeed uma muuqanin. waa aragtay ay dhalinyarteena inay noo muuqanin waalidka hadalkooda. aan iskaga cararayna meesha, aan iskaga tageeno. jaceylka wax walba ka keenaa lagu dheh, laakiin waalidka waa inaad respect aa siisaa, aa ka heshaa. si walba ha ahaata hooyadaa waxay ku diid waa inaad iska daysaa ama aabahaa. waalidka ducadiisa waa muhiim asxaabey. gabadhii warkii idinku daan warkii gabadhii way baxday, waxay tagtay haddana way ka daba carartay. ninkii ka daba carartay wiilkii. kabacdi haddana wiilashii baa laga daba diray, waa la keenay gurigii baa la keenay. mar labaad haddana way fakatay. haddana mar saddexaad waa la keenay. mar saddexaad ba haddana ay carartay. hooyadeed waxay suubisay, labada lug bay ka xirxirtay. waxay ku gubtay dab bay soo qaadatay. maamada lugihii ka gubtay. lugihii waxaan ku dhahay maamadii way iska oysay. silac iyo rafaad yaa baday intaas yaa baday asxaabay. hooyadaa inay ku gubto, hooyadaa way ku jeceshaa, way ogtahay. si walbo way ku jeceshaa, waa ogtahay. laakiin inay waxaan ka joog ku dhahday, inaa ka joogta maynay habooneen. maxaa keen sorry asxaabey, maxaa kalifay sorry xamaasada qaaday. maxaa kalifay hooyadaa inay lugaha kaaga gubto? hooyadaa way ku jeceshaa, silac iyo rafaad kuu soo martay. miyayna ahayn inaa iska daysid waxay iska dhaaf ee ku dhahdo? xataa aabaha ha ahaado waxaa iska daa hadii ku dhahdo waa inaa iska daysaa.
hooyadaa ma inaa ka oysiisaa, ma hooyadaa inaa maxalla ka qaylisiisaa, ma hooyadaa inaa dunida ee nacda ma ku kalifaysaa hooyadaa. ilaahay ka baqo. nin bili-aadan wada cidloo kaaga tagayaa, nin bili-aadan wada cidloo kaaga tagaa. hooyadaa ha ka tagin. hooyadaa silac iyo rafaad bay kusoo marta. hooyadaa ha ka tagin. hooyadaa ha ka tagin. sorry. marka asxaabay sheekadaan diinii sii wada aduu ilaahay ka dhigo. gabadhii lugihiyaa laga gugubay ee gurigii iska joogta. hooyadii mar walba waa iskaga dul ooynaysaa. hooyadii mar walba waa iskaga dul ooynaysaa. iyadana xanaaqii baa qaaday sidii gabadheeda ay ku gubtay, lugaha ka gubtay. gabadhii haddana sidii may maxaa la dhahaa isheeg kumay waana qaadan, way baxda, waa iskaga carartay. waxay tagtay haddana ninkii bay u tagtay. ninkii hadday u tagtay, ninka haddaa u dhimanaysa xataa maxaa kaa dhibaya hadduu guri kuugu haysanayo. hooyadii haddana ma ogtahay horta waxay tahay. iyadan way yani waxaan sheegay wallaahi garan maayo. adina isagana hooyadii gabadhii haddana way nacday. waxay tiri qabiilkaas anagana nama soo galo, adduunka qabiil baa laayay. asxaabi waxaa idin sheegayaa, waxaa biliis an biliis waxaa idin sheegayaa inaa hooyadii oo hooyadii wax allah wax ay rabto inaa u samaysid hooyada iyo aabaha. asxaabi marka sorry xamaasadii aqaade. asxaabi marka please and please sii sheer gareeya. dunida waxaa ka jira waan ii sheegaya, sii sheer gareeya. marka gabadhii way baxsatay, gurigii baa la geeyay, waa la mehriyay. hooyadii way iska daysay guriga. waxay dhahday iska dhaafa, iska dhaqata bay dhahday. gabar aan gugubay tiri oo korkeeda aan dab aan gaarsiiyey tiri, ee iga sii carartay, ee ogtahay tiri aniga kooma aan u galay bay tiri. haddana ee baxday, ee soo mehersatay. markaa may ka daba tagi kartaa? kama daba tagi karta hooyada. marka asxaabteeda qaaliga ah, hooyada way iska dhaaftay, koomay gashay. hooyadeed way baxday, waxay tagtay maxaa la dhahaa ninkii gabadhii way baxday, waxay tagtay guriga hooyadii bay tagtay. guriga wiilka hooyadiis baa la geeyay. wuu soo maarsay, ilmay dhashay. ilmihii hadday dhashay, wiilkii wuxuu yiri wuxuu iska noqday wiilkii saqraan buu iska noqday. saqraan markuu noqdo hooyadeed wiilka hooyadiis waxay dhahday waa inaa furtaa, gabar Yurub joogtan kugu daraabay dhahday. wiilka aabihiisna cuuriyaan buu ahaa. awal markii hore wuu ficnaa, markii dambe cuuriyaan soo noqdo. waa ilaahay maqaadirtiisa subxaan allah. caafimaad buu qabay, marka dambe cuuriyaan. gabadhii baa maxaa la isheeg wax walba u samey jirtay. oo guriga maxaa la maanta hadii guriga laho shaqaala dhaa iyada ka hooyo hadii la dhaha maanta iyada oo hooyo ka oo maamadii ay joogto labada leed lagu iskor saaran. wiilkii gabadhiina waxay ka qaadaysaa aabiya mar maxaa lahaa la joogtaa, marna ciyaalkii bay la joogtaa. wiilkiina saqraan buu noqday. alxaasil warkii idinku daalin. wiilkii maxaa lahaa wiilkii wuu furay, gabadhii wuu furay. waxaa lahaa hooyadiis baa dhaaday ilaa ina iska furtaa bay tiri gabadhan. maxaa lahaa ilmaheedana aa qobtaa tiri, haddii kalenta ilmaha noogu reeb bay tiri. sidii ilmihii maxaa lahaa loogu reebtay. iyadii banaankii loo soo foofiyey. banaankiya maxaa lahaa loo soo saaraya layiri get out baa layiri. marka asxaabteyda qaaliga, hooyadeed koomay ku jirtay. hooyadeed si walba silac iyo rafaad soo martay. gabadheedii waa hooyo, hooyona waa hooyo. gabadhii hadda waa kaas hooyadeed weji way ka yeelan weyday. wiilkiina ee raacday, ee hooyadeed uu go'day, oo maxaa la dhahaa ise shinjo xumo lagu caynayay ee raacday. waxay tagtay gurigii oo maxaa la dhahaa isheeg oo ninkeedii ee tagtay reerkiisa haddana iyadii la mitikooraya maa la dhahay. marka maxaa loo baahan yahay inaa iska dhaaftiin baa loo baahan. hooyadiin waxay ama aabihiin waxay iska dhaafkadeen inaa iska dhaaftiin. meel walba ayagaa kaa og. dunidan waa aragteen, naf aa loo gooyay, aa loo gubay, waa aragteen. marka ilaa iyo hadda hooyadeed hooyo waa hooyo, waa aragteen. hooyo waa iska hooyo. markay usoo noqotay banaanka gabadheedii waxaa la yiri darbijiif bay noqotay. gabadhii ilmaha dhashay oo gurigii laga soo eriyay way baxday.
banaankii baa tagta darbi jiif baa iska noqotay meesha haddii qofku uga haynin waxaa noqonaysaa confuse baa qaadaysaa stress baa qaadaysaa waa waalanaysaa meesha haddii qof bil oona kugu siinayn dhibkeeday leedahay marka way soo baxday gabadhii hooyadii way soo baxday waa la tusiyey gabadhii meeshii iskaga dul oysay hooyadiiyaa iska oynayso maxay u oysay gabadhii mar walba oo maxaa lahaa ninkii ay kasoo celcelinaysay oo maxaa lahaa birna oo shalina oo banaanka oo soo dhigo yiri iiga bax buu yiri guriga maxaa la dhahaa oo ilaa ninkiina waa cabtooy naa kaleentana waa lagu daray naagaha Yurub joogaan gurigu way dumiyaan siimbiro ayagaa gurigu dumiyaan waxaan dhihi karaa boqolkiiba boqol ma dhahay boqolkiiba 10 baan dhihi karaa aniga marka asxaabteeda qaaliga hooyo waa beer jilacsan tahay hooyo waa taqaan waa iska beer jilacsan tahay way baxday gabadheedii soo wadatay guriga keysatay guriga hadee keysatay gabadheedii way iskaga dul oysay maxay sameynaysaa waa gabadheedii waa jirkeedii waa jeexeedii maxay sameynaysaa halka gabar ay ka qabtay waa lugihii sidii waxaan ku dhahay dawo xataa lama siin gabadhii lugihii sidii maxaa la ugu fashfashtay waxaan ku dhahay dawo xataa lama siin saasay laba ciyaal ay ku dhashay lugihii sidii ay ku gubnaa sidii biyo mar walba ay ku weysa qaadanaysa mar walba maxaa la biyo oo gaara oo dawo aan loo cabeyn waa taqaanin lugaha gabadhiina sidii lugaha ugu fariisatay asxaabe gabadhii waa kaas lugihii laga gubay sidii lugaha ugu fariisatay balka warama fikirkeena waa inoo muhiim asxaabteeda qaaliga waxaan ka codsanaa please bilow aan dhamaad daawada xamaasadii baa qaaday gabadhii waxaan ku dhahay lugihii ka fariisatay gurigay iska joogtaa maxaa la dhahaa insha Allah idina wax walba u hagaagayaan hooyadiina way iska soo xareysatay gurigii u joogtaa hadda waa gabadheedii intee geenaysaa gabadhiina waxay rabtaa ilmihii rabtaa mar walba inay u dhuumato ilmahaas ay soo fiirinaysaa biyo kulo loogu soo shubaa lugaha mahaqba marka hooyadaa meesha ka celinaysa please iska daa yee ku qaadin waxaan waa jacayl waa been ninka intuu dadkaaga maxaa lahaa isheeg ay ku jecelyihiin ku jecel yahay been ku sheegi ma aniga please iska daaya بليس وعدتي اسكدايا هو والدكي مركون يدو ماشان كالليحظة اسكا الليحظة بليس أصحابته وحن قعد سنة usoo duceeyo waa gabar Soomaaliyeed lugiye ka fariisata hadda iyadoo gurguuranaysa ee waxa ilmihii ay soo fiirinaysa biyo saa loogu soo seerayna biyo saa loogu soo shubaa maxaq baa Ilaahay igu dhaariyay walaashin Soomaaliyeed inay lugaha Ilaahay ka caafiyo usoo duceeya please sii shargareeya asxaabta sii shargareeya please waa codsi usoo duceeyo waa walaashin Soomaaliyeed fikirkiina waa inoo muhiim oos noogu soo qora adduunka walaal lagu yahay usoo duceeya si qalbi ahaan ugu soo duceeya dunidu maanta waxa ka socda waa arkaysiin hooyadaa way ku jeceshahay kuma quurta inay ku gubta xataa iska daaya inay guriga ka fiijiso xataa kuma quurto wax walba waxa ka keenaa dadka waa aragta dardaraala way jiraan wax walba maxan la isha waa lagu xumeynaa please hooyada iyo aabaha waxay ku dhaheen wadada ay ku dhaheen ha ka leexan wadadaada ku soco waxay ku siiyaan ama ninkay ku siiyaan waa ina qaadata u hoggaansataa please hooyada meel xun kugu maridaysa aabaha meel xun kugu marida uu jecel yahay dhaqankaada uu jecel yahay wanaagaada uu jecel yahay farxadaada please ka feejignaada aan leeyahay asxaabteeda qaaliga ماشا يدينكم سيو قبقبينا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.